warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta banaanbax cabasho ka dhigay kuwaas oo ay ugu soo horjeedeen Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo 72 saacadood si sharci darro ugu xiran dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah ururada warbaahinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeestay xariga loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dib loo siiyo xuriyadiisa. sidoo kale waxa ay ka dalbadeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble in ay tixgeliyaan xuriyadda hadalka. ururada saxaafadda magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in ay dadaal ay ku bixiyeen sii deynta wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow, laakiin weli ay jiraan caqabado waaweyn oo ka hortaagan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. wariyaha oo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay habeen saqdhexe ay ugu daateen gurigiisa ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli oo wareysi uu ka qaaday ganacsade Xaaji Abuubakar Cadaani oo taageeray fikirka xarakada Al-Shabaab, waxaana arrintaasi ka dhalatay in habeen saqdhexe loo galo guri uu ku lahaa magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaa waxaa iminka oo ka shaqeynaya warbaahinta Muqdisho mid ka mid ah gaar ahaan idaacadda Kulmiye oo ah idaacad madax bannaan, isla markaana Cabdullaahi Kulmiye Cadow iminka si sharci darro ah ugu xiran yahay dowladda federaalka Soomaaliya. qaar ka mid ah ehelada wariyaha ayaa ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka in xuriyadiisa si sharci la'aan loo soo daayo, waxaana ay sheegeen in caruurtiisa oo isaga gacanta ku hayay iminka ay dacdareysan yihiin, sidoo kalena hooyadii oo da'a iminka ay la xanuunsanayso naxdintii ay ka naxday afduubkii ay u geysteen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. banaanbaxa maanta ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ee ansixisay xuriyadda hadalka ama saxaafadda Soomaaliya, waxaana arrintaasi caqabad weyn ay ku noqotay saxaafadda ka howlgasha magaalada Muqdisho.